jacaylku waa sida dagaal si fudud ku bilowda wuxuuna ku dhamaadaa si adag macquulna maahan in la ilaawo waxaan rajaynayaa inaad si wanaagsan u fahanto inaan ku jeclaani doono ilaa inta ka dhiman nolosheeda sababtoo ah waxaa tahay qofka kaliya ee nafta bogsiya isla markaana mustaqbalkayga ah mar walba dhinacaaga iga fiiri xabiibi wax dhib ahna ma lahan duruufaha adag ee nolosha waxaa kaliya laga gudbi karaa qalbi saafi ah oo jacayl iyo daryeel kuula diyaar ah jacaylkayga waa mid qoto dheer oo runta ku salaysan xiisuhu waxa uu kordhiyaa aragtiyada caashiqa qalbiguna wuxuu u garaacmaa si dhaqsi ah markaan isha ku saaraba waana arinta ugu weyn uguna macaan nolosheeda jacaylkayga weligiis wuxuu ahaani doonaa mid daacad ah oo laga ilaaliyay khiyaano iyo danaysi naftayda ayaanba ii ogolayn inaan ilbiriqsi qof kale aan eego jacaylku waa sida xidigaha oo kale waxaa loo saadaaliyaa sida riyada nolosha waxaa loo hagaajiyaa sida nolosha taniya markaan ku arkay nolosheeda oo idil adigaa mulkiyay waan ku tabayaa maalmahan waan xisaabiyaa way iiga qiimo badan tahay saacadaha aan kula joogo maalinta saacadaheeda kale marna ma ilaawi doono ruuxdaada quruxda badan ee loo wada riyaaqay ee awoodda u leh inay iga dhigto qof aaminsan sida ay nolosha u macaan tahay sida ay u wanaagsan tahay joogitaankaaga oo aniga dhan iga dhigtay qofkaan dhamaystay waxaad ii hirgelisay riyooyinkayga inay noqdaan kuwa rumooway isla markaana hamigii noloshaan aan wadaagnay waa natiijada xanaan iyo xubbi miro dhala nolosheeda la'aanta macaan oo dhan ma lahan haddii aad ogaan lahayd sidaan kuugu xiisay marnaba ma sii dayni doono mana u ogolaani doono dareenkan inuu gacantayda ka baxo aan ka faa'iidaysano fursadaha nolosha noogu deeqdo innagoo iska dhowrayna inaan si ku talagal ah isku dhaawacno marka aan maqlo qosolkaaga ama hadalkaaga dareemaha jirkayga oo idil wuu isbedelaa oo waxaa buuxiya naxariis iyo jacayl mug weyn dunida ha igu cidlaynin waxaa tahay qofka kaliya ee dunida ugu jeclahay ee aan ka fikiro hariyo habeen